بسم الله الرحمن الرحيم أنا تيم كالديق فونديشن فرع عيدا مقالة هرقيسة waxaan maanta ku sugnay xaafad kamid xaafadaha magaalada Hargeysa ee ah xaafada Cakaara oo aanu ku booqanay hooyo Soomaaliyeed oo runtii ku dhiban waxa deeqda ku soo deeqay ururka Aldeeq Foundation gaar ahaan gudoomiyihiisa Cabdishakuur Ashkir oo wakiil ka ah walaalahayna muxsiniinta ee Aldeeq Foundation ee jaaliyada Switzerland oo ay wakiil ka tahay Xaliimo Cabdalle Isaaq halkan waxa joogta hooyadiin hooyo soo dhaw halkan hooyo walaalaha muxsiniinta ee ka caawiyay maxaad ugu duceynay adigoo magacaaga inoo ku bilaabaya magacaygu waa Farxiye Maxamed Jaamac walaalahayga muslimiinta ay soo caawiyeen Ilaahay waxaan ugu barayaa halkay ka soo saareen wax khayr leh Ilaahay ugu bedelo waxaan kaloo leeyahay walaalahayga muslimiinta aad ayaan u dhibaataysanahay aad ayay soo caawisay nimanka hadana caawimaadayda walaalo waxaan codsanayaa mar labaad inay soo caawisaan walaalahayga muslimiinta taasoo dhibaatada oo koobaad ay haysato hoylaan hoyga yar arkaysan aan ku jiro waa hooyo waqaf walaalayaal habeenkii roobabka walaaldaaya waxaan u baahanahay walaalayaal oo muslimiinta inay iga soo caawisaan walaal hoy yar oo labada ilmo yar oo agoon aan ku haysto walaalayaal waxaan kaloo walaalayaal idin sheegayaa gabadha oo aad xanuunsanaanahay yeelkada dhibaatada ugu weyn ee haysata ay tahay hoylaan baahi gaajo mas'uuliyad la'aan cid mas'uul naga Ilaahay mooyaan aan jirin khayr Allah idin siiyo dhamaan amiin 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 walaalayaal saad u aragtaan ba waad aragtaan hooyada dhibta ka haysato intan waxba ma aha waa barbilow waa bishii barakada waa bishii sadaqada وبشو نبي ويري على سوق صدقسته ولا كل واحد إن المسلمين تسكن قدام ويجي عيالك عيد كودي يهوي جوا حلقة عاوية إلهي جزاك الله جزاء خبر الله نحن ولا علينا الديق فونديشن